السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وان السلام يا I'm back and again. waxaan leeyahay anigu caafimaad qaba inkana caafimaad qabtin is good coronavirus ka badbaadeen qof walba xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiyo maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuciga ku saabsan yahay reaction kan waan wasaaraha Soomaaliya oo la xasilay sabab dadka shacabka Soomaaliyeed ku qanacsantiin ku faraxsantiin misoo ka xuntiin wadanka saawbna wax badan oo khayr u soo qabtay intuu ka ahaws wasaare 4 sano 3 sano xogaa عزلاديسا maxaa keenay sida degdeg ah oo lagu casilay iyo sida sharciyada la rabeen loo maro oo loo marin oo hal mar ee barnaamij ku dhawaaqan in la casilay sababtu maxay tahay sharciga oo macnaha oo hadana laga gabmarayo oo waqtigii wax walba munaasabkii loo rabay in loo soo maro oo loo marin aan silowda dhageysano wuxuu wadanka u soo qabtay dhamaanteena si degnaana ku wada dhageysano insha Allah waxaan salaamayaa ugu horeyntii shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan 23 February 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimada qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga saaran muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku sameeyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn samaqleysiin wuxuu dhahay maanta waxaan soo gaarsiinay heer ciidamadeena Soomaaliya ee awood u leeyihiin inay xoogga dalka Soomaaliya la wareegaan awoodda la wareegaan ee macnaha mas'uuliyad wax walba hadda la wareeg karaan ee awoodooda leeyihiin taasna markii hore intaas sano ma arkin anaga ballaaran ku sameynay nidaamka maaliyadda dalkeena oo dunida noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay'adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in la inaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeena muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyay waqti badan waxaan la dagaalanay musuqmaasuqa waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017 saawnahay taas been maaha wasaaraha waa mid oo shacabka Soomaaliyeed u yihiin ugu horeyso ciidamada Soomaaliya way ka carar jireen dhalinyarteena bas hadda ku soo caran bas mushaarkooda joogtay helayaan wadankoodana way difaacayaan tababar xoog leh waa la siiyay waana laga taxadiraa waana laga fikiraa caafimaadkooda wax walba taasna been maaha qof waliba qaatay waxaan ku guuleysanay dawlad wanaag iyo amaano waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxa laga maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya taas minis waxa waaye dastuurka iyo sharciga iyo waqti walba waqtigiisina lagu wax walba waqti in lagu qabto waqtigii lagu talagalay sheekadan waa muhiim arintu hadda ka hadlay dhageysta waa mid keentiin la casilo waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale waarun wuxuu asagu ku amray xukuumadda wasaaraha uu yahay inay waqti lagu dareenin doorashadana waqtigeeda lagu qabto ani sax ila tahay because qalb waxyaalo badan ay ma karo maamul goboleedka dhibaatooyin badan ay ka iman karo wax walba waqtigooda lagu qabto
way wanaagsan in waqtigooda lagu qabto sida caalamku doorasho walba waqtigeeda lagu qabtaa waxaan ka shaqeynay isu keenida dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo foolay waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhameystiro geedi socodka doorashooyinka dalka inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyay haddana waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib ugu celi karo burbur iyo khalkhalaadso badan iyo qabyaaleysi wuxuu ka digaa waa qabyaalad iyo siyaasad qaab daran inay haddana macna waddanka ku laabto sababtoo ah asaga waqtigii in lagu qabto because waqtigan la korsanayo waxay dhibaato badan ay keeni kartaa sharciga dastuurka iyo waqtiga lagu talgal doorashada in lagu qabto ayaa sharci ah alin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qorayso dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu barto inay tahay anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajandaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn taas waa sax laga doodin oo haddana oo macnaha waddo loo maro sharciya leedahay marka si easy maaha waxa intii la fadhiisto oo hal mar gudoomiyaha now waxaan waa inay si waddo sharci loo maraa waana qalad waa in xoogaha laga hadlaa laga doodaa laga tan qalad weyn oo arkaa aniga taasna way cadahay dastuurka iyo